دكتور محمد عبد الجبوس ayaa waxa uu ka daraan celiyay hadal maanta ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi oo isagu ku eedeeyay doctorka in aanay islahayn ficilada iyo talooyinka uu ka soo jeedinayo doctorku xanuunka COVID-19 doctorka oo ka jawaabaya hadalkii madaxweynaha waxa uu yiri waxa la yiri aqoon buu sheegtay aqoon ma sheegan ee waa hibo Ilaahay bixiyo waxaan ahay waxaan sheegtay talabaad aqoontan bartay waxa taladeedu ka soo butaacaysa qalbi u nadiif ummadayda qalbi dareensan dhibaatada iyo colaadda iyo mushkilada dagaal ay soo socota qalbi isiri kaalintaad qaadan karti qaado ma ahayn mid ka soo gufaacaysa qalbi xanuunsan ma ahayn mid siyaasadii hoosta kaga laban tahay ama kalar kale u yeerisay waxaan islahaa door nadiif ka qaado maanta ummadaada waxaad u qaban kartid waxa mucjisay fiicisay igu noqotay madaxweynaha aanu hiilinayay in hiilkayga ku noqday waran oo ka gami waayay waran oo ka fariisan kari waayay waran oo u qaatay sida dad badan ay ugu taliyeen ugu sheegeen in chatkan iyo arimahan Gaboose arimo kale kale yahay oo dabin uu gelinayo aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay hoggaan dhan ee dal ee laga filayay qaranka milgihiisa inuu colaada soo socota u soo dogo dalka inuu u soo dogo dadka inuu bacadlaha yimaado bacadlahaagii baa isdhex fadhiya suuqii baa isdhex fadhiya maqaayihii baa isdhex fadhiya ummadii oo dhan baa isdhex fadhida madaxweyne kaalinkaaga ma banaana Gaboose ee waxa kaaga banaan qarankan taariikhda inaad ku gashid xanuunkan dilaaga ah ee aan ninna reebayn inaad u soo daadagtid hoos u timaadid dalka maaha madaxtooyada iyo beertaada inaad ka hadishid madaxweyne haddaan sawirka kaaga sheego annaka dhaqaatiirta waxaan nala ku ababiyaa shaar cad baan nala ku ababiyaa taasoo ah qofka haddaad doonaysa inaad wax u sheegtid xataa hadduu khalad ku jiro inaad wax la cuntid isagoo xanuunka aad cunaya ka qaadaysid waxaan nala ku ababiyaa inuu dareemo qofkaasi inaad qayb ka tahay shaqaalaha dhaqtarkeegu waxa caado u ahaa sanadkiiba inay mar afuraan habluhuna qol ku afuraan dumarkuna maxaan raguna meel kale ku afuro madaxweyne shaqaalahan waa shaqaale dhiigooda iyo candhuuftooda iyo noloshooda hadday tahay Jones hadday tahay TB hadday tahay wax walba hadday tahay xumad hadday wax walba tahay waa dad haysta caafimaad buuxa haysta oo markay maanta ku qalayaan markay maanta ku gudul istaagayaan la hubo inaanay waxba u qarsoon waxa ilaa xalayto la faafinay sawirka cidda faafinaysana waa cid la iska garanayo maartay halka ay ka soo jeedo marka wax xumaana ma umarko xumaan waxa warka cidda u haysata wax weyn in loo qabanayo marka madaxweyne haddii miitaal la qaadanayo ee la leeyahay dad buu dhex istaagay ilaa xafiiskaaga ilaa madaxtooyada ilaa gurigaaga ilaa wadada ilaa xafladaha wali ma isagta sawirkaaga madaxweyne inuu afduuban tahay inaad gacmaha gloves qabtid in kuwa ku joogo kamareen ku dhiyo kuwa ku dhawaya ka fog yihiin xafladaha tagaysid miyaan xafladaha timid imisaad ayaa fadhiday qof marka madaxweyne aanu kula ficil tami maayo waayo waan kaalahan weynaynta Cabdiraxiin Muul Ismaaciil shabakada wararka Kayles News magaalada Hargeysa